garoowe ah oo isagu iga soo horeeyay gabaga markii jawaabta way kanu waxaanaba doontay xidid dhalad helay oo dhumucda weyneed dambaalkaad warlaliyaha dhigtay oo dhiibtay noo yimi noona deeqay sida dhoolankooda dhamac kale leed niman gabayga dhereshaa jiro aan dhug ku lahayn adiga maansa dheemana rabbi baa kuugu shubay dhoonay dhibilaah ka hayow abwaan dhiiran baa tahay wadna dhihi taqaana haday dhimanayaan qaar afarta dhameeya waxaan dhaabay uga yeelay intii duni ilaahay dhidbay ee dhaabay udubkeeda dhulkoo la isku laayay yarlada dhagartu waa tiil wadkuna kama hor dhaco mana akhiro dheydkii loo qoray lagumana dhaqnaadeen haddaan dhiigga loo shubin dhimashada ninkii ka cabsada baa laga dhaqaajaa dhacdo waliba sooyaalka waa shay aan dhumi ahayn adduunyadan dhammaadka ah qolyaan kaga dhignayn meel oo raba waqtigan inay dhashaan dhag iyo taariikh markay salibin ka dhowreen ragaan lagala dheelmaynin dhulkaal noqotay buu hodlay iyo dhinacii reer hawd dhamac iyo dab baa kala kulmay iyo dhuxulan naareed sanaagna waa dhagxaan iyo bir aan cunaha dhaafayna dhahar iyo in badan lagu degdego waran dhanaanay dhabase gobolkii sool baa noqday iyo dhuun la soo muray maxamuud garaado dhan oo dhumuc ilaahsiiyay dhir aan qodax lahayn laguma wadin sida dhalooleede dharaar iyo laba waxa qabsaday reer dhigooda ah dhudhuna laguma haysto iyo laxaad kumana dhaamaan ee jeegaantuna ma dhalin lamana dhalan mana dhaxlaanin maamulla kama dhaxayo iyo dastuur la isla meel dhigay dib hore iyo SNM lama lahayn dheeftan bood timiye dhowris iyo kalgacal loo hayana kuma dhex joogaan xildhibaanadoodii wata jeel la dhigaya ee dhakool waxa xabsiga loogu riday waa dhafoormudis ninka sageel walaalkii u dhalay dhere ka soo waayay dhiil u reera kale kula kalahay kama baashaan dhiifay dhagxumada Puntland baa iskale inay isdhiibaan ummadda qarya fudud faraku hayn baa u dhayma ah idinka dhasiigay oo sakraday gobolkan oo dhow haddii se maansa dhirif loo tirshaa dhiiri gelinayso abwaanadii ka dhiidhiyay adaa ugu cod dheeraa ee dhiile kiciya adiga tirshay iyo qaar dhigiisa ah hartigu waa kan dhoobane wuxuu hiildaba u diiday tolma dhicin karaan geel nin la hidhiibayo wado shir shooraa dhufayso colka iyo dhoobir ciidan ee afartaana dhameeya waxaan dhaabe uga yeelay dusha lagama dhayo nabar hadduu hoos u dhaadhaco ee hadba kaan xilka u dhiibano ee maamulkan u dhaarta waa meesha Puntland ay hadba kaan xilka u dhiibano ee maamulkan u dhaartay inta uu dhaweysto iyo isagu waa dhac ku heshiisa dhalnateed wuxuu qaar tuso oo dhab uga yeelaaba waqtigiisu goortuu dhan yahay ama dhamaanaya dhaqaaliyo hub wixii yaala buu kala dhaqaaqaa ee dhigna lama yiraahdo oo horaad ugu gasheen dhiil ee reer kastiba 5 sano inay dhurtaan waa heshiis dhacay taladuna dadkaba kama dhaxayn dhowr biyo isxigay ee kursigana rag baa looga dhigay dhaxal awowgooda dib in loo sinaado oo haddana dheef la kala yeesho waa dhaqan Puntland ka hirgalay oo la isku dhuun mudaya kanse dhaliisha aad sheegtay baa baraba sii dheer kan dhaliisha aad sheegtay baa baraba sii dheer waxba ayuu dhaqaajine haddii taladii loo dhaafay ama uu kooxihii dhiil la galay dhigay halkay taalo dheeligu tan suuga baxaa way ka dheer tahay dadkuna waxay dhigtaan shar iyo khayr waa dhitowtal abwaan wuxuu dhawaaqayay yooday ma dhaafaani dhibkii dhacay mid ah shay rabeen inaad u dhiibtaane baarlamaanka dhaxaan u nirdhaamakii hore mase dhageysan nimankii la yiri dhiciya maatada dhabadii kuwii hore ayay dhaankii mariyeen dhaqaale u imaaraad baxshay iyo dhowr dalo carabi waatay masiir dhaafsadeen duhur dharaareede libaaxa intuu tulud ku dhaco dhaafa baaqiga ee tira dhidar u baada habeen dhaawac fiig male dhulka oo khaliij laga gado baa loo dhutinayaa emarsi hadii dhurwaayadan ballamay la iska dhicin waayay reer kastiba dhardhaarku la yimi buu dhifsanayaa adiguna halkaad dhigi lahayd dhariga doono dabadeedna waxay dhashiyo madaxaan dhowro wabillahi tawfiiq kaasina waxa abwaan calmadow waxaana ka duubay anigu Axmed Shirbeeye. Assalaamu calaykum warahmatullaah.